السلام عليكم. بر أما برو وبرنامج وعي قلين أقونيدا ويكفايدي سنيان ومدى أفصل مالي كوالشا. برنامج كان وحسو دياريي إذن السعودسينية يعني قوة محمد جامع وحي تلا يتصالع وحاد يلسو حريري كرتان يوان كان هوسكورا. barnaamijkan gabi ahaantiisa waxa uu ku saabsan yahay sida looga faa'iideysto internetka iyo waqtiga. Soomaalidu maanta aaladda internetka aad iyo aad ayay u isticmaalaan meel kasta oo adduunka ka joogaan. Su'aashu waxay tahay ma ka faa'iideystaan internetka? boqolkiiba 80 waxaa la oran karaa Soomaalidu kama faa'iideystaan internetka sidii loogu talagalay. Tusaale ahaan waxaad arkaysaa bogag badan oo ay Soomaalidu ku leeyihiin dhinaca Facebooka. Waxaad ku arkaysaa bogag badan oo ay ku leeyihiin fanaaniin, dhalinyaro, sports iyo waxyaabo kaga hadla, bogag qosol iyo madadaalo ku saabsan. Halkii bog waxaa laga yaabaa ugu yaraan 2,000 oo qof ama ka badan in ay xubno ka yihiin. Haddii aad mid ka mid ah booqatid, waxa aad kala kulmaysaa sidan: midkee xanuun badan, qof aad aaminsaneed oo ku dhaawacay, iyo bla bla bla. waxaa laga yaabaa qoraalkan yarka ah ee aan macnaha lahayn in 5 daqiiqo gudahood ay commenti ka soo bixiyaan 500 oo qof, ay 300 oo qof tusaale ahaan like sameeyaan, ay 200 oo qof in ka badan share ku sameeyaan qoraalkan aad arkaysid. taas macnaheedu waxa weeye in 1,000 qof in ka badan ay kombiyuutar dul fadhiyaan, waqtigana ku dhumiyaan fadhi ku dirir iyo Facebook maxaa laga sheegay, oo aan garanaynin sida looga faa'iideysto internetka iyo waqtiga. Badlan stop waqti dhumiska. taas waa sababta aan u soo bandhignay barnaamijkan oo aan filayo dad badan oo Soomaaliyeed inay ka faa'iideysan doonaan. internetku waa maktabad, waa iskuul, waa jaamacad. ka waran qofka maktabad cilmi ka buuxdo dhex fadhiya oo haddana turub ku dhex ciyaaraya. waxaa la mid ah qof waqti kombiyuutar iyo internet haysta oo haddana Facebook iyo fadhi ku dirir ku mashquulsan. qaybaha dambe waxaan uga hadli doonaa haddii uu alla idmo sida looga faa'iideysto, sida uga faa'iideysan karaa maktabaddan internetka, xaggee wax ka bilaabi karaa, maxaa la iiga baahan yahay. insha Allah la soco qaybaha dambe.